السلام عليكم ولا ku xiran janalka Rashka Xidig maanta waxaan idin haynaa qis aad u cajiib ah u baahan in lagu cibro qaato qisadani waxay dhaxmartay haweeney masaakiin ah iyo nin kibir badan oo ahaan taajir ah haweeneydii ay waxay bilowday mar allaala markuu dhintay ilmaheed aabahood ay waxay bilowday in caruurteeda dhaxda u xirto waxbarashadooda iyo cuntadoodiiba haweeneydii waxba ma haysan balse waxa u yaalay guriga in yaro subag ah subaxyada kamid ah waxay soo aaday subagii inay suuq geyso ayadoo suuq sii socota ayaa waxa u yeeray ninkii kibirka badnaa wuxuuna ku yiri maxaad sidaa si naxariis leh waxay ugu jawaabtay waxaan hayaa subag markaas wuxuu ku yiraahday soo deji balan arkay subaga ayadoo soo dejinaysa ayaa wax yar sidii ugu daatay dharkiisa intuu xanaaqay ayuu yiraahday maanta halkan ka dhaqaaqmaysid ilaa aad dharkayga lacagtiisa siisid haweeneyda intay ooysay waxay ku tiri anuu ma hayo maxaan sameeyaa markaas wuxuu ku yiri anuu ka yeelimaayo inaad dharkayga lacagtiisa ii gado haweeneyda ayadoo sii ooynaysa ayaa waxay ku si naxariis leh ugu jawaabtay waxay ku tiri niyow hay caybeen waxba ma haystee balse ninkii uu ku dhiga adkaaday hadalka ayagoo sii ooynaysa haweeneydii ayaa waxa soo dul istaagay wiil yaro dhalinyaro markaas wuxuu ugu weydiiyay haweeneyda sababta ay ooynayso waxayna uga jawaabtay qisadii ayadiyo ninka dhaxmardhay mar allaala markuu ninkii dhalinyaro inta uu maqlay wuxuu ku yiri meeqaad ka rabtaa gabadhu markaas wuxuu ku yiri waxaan ku rabaa 1,000 diinaar markaas wuxuu yiri wiilkii ayuu u soo saaray lacag dhan 1,000 diinaar mar allaala markuu siiyay ayuu qaatay wuxuuna damcay inuu sida uga tago meesha balse ninka ayuu wiilkii dhalinyaro ayuu ugu jawaabay wuxuu ku yiri sidaad u baxaysaa adigoo dharkan haysta lacagtan haysta hadaba dharka anaga ayaa iska leh lacagtu waad qaadatay keen dharka noo soo celi markaas uu yiri hadii aan soo celin maxaan sameyn markaas wiilka dhalinyaro wuxuu ugu jawaabay waxaad bixinaysaa lacag dhan 2,000 diinaar ninkii wuxuu yiraahday anigoo qaaban miyaan halkan ka baxaya waa ceeb waana dulmi wiilkii dhalinyaro ayaa wuxuu ugu jawaabay hadaba waxaad haweeneydan ku samaysid soo dulmi ma ahan markaas ninkii inuu qaladkiisa gartay wuxuuna soo dhiibay ninkii lacagtii 2,000 diinaar loo dhiibay 1,000 kale ayuu ku soo daray wuxuuna isku noqotay 3,000 diinaar wuxuu u soo dhiibay wiilkii dhalinyaro ahaa wiilkii ayaa lacagtii wuxuu siiyay maamadii balse way rumaysan weyday maamadii dhulka ay ku dhacday madax ayaan wareeray wiilkii dhalinyaro ayaa gaarigiisa ku soo kaxeeyay wuxuuna keenay gurigeedii waaga markuu u biryay ayaa wiilkeeda u yeedhay waxayna ku tiri hooyo ducadaadii alla wuu ii aqbalay hadaba soo baxa idin kaxeeye waxayna u kaxeysay suuq si ay u soo iibiso maro iyo agabyo ay ku baran lahaayeen iskuulada qisadani waxaynu ku fahmaynaa in mar waliba ilaahay la tala saarto mar waliba ilaahay la tuugo ilaahayna wuxuu leeyahay ud'uuni ibarya astajib lakum an idin ajiibe qisadan halkan ay ku egtahay dhammaan asxaabta ku xiran channelka Rashka Xidig waxaan ogeysiinayaa in ay subscribe saaraan kambalelkan ay furtaan si ay uga faa'iideystaan qisooyinka cajiibka ah mahadsanidin